السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإن سلام يا دماء والله الصوماليات هل كان يقدر ونيا ميل والبوا جوكتان يسوي البودي مغلسان بوا إن سلام يا وحندونا يا إن المقال كان كجهض لبع الريموت أورنتي حساسية أنا كوي جدا بيه وأنا سامين تبنا سياسة ده دلك الصومالية وحنمركور كحد دونا إسكوداي لا إسكوداي إن لقبته إسلام مركزنا قبل كجدول لجمع سافريو وزيرك هراء قاشان دقة حلبان هراء برا آدم شرب برا هيرالة ومحي أرنتا كو هراء رئيسان أرنتاني عدي كدن بيسي يحوغا مهمة وانكا هايو أيام كسو قد مدونا قيبتا وغو رئيسا وعنكا لو كهال دونا شركي كسعودي دالك جبوتي أو سعودي دالك مريكنكا حسن الشيخ محمود اسماعيل عمر قيلة موسى بيحي أو مركا لغسو أبابولي قرشيال كلا دوان أو حوغا مهمة عنكا هايو إيو حسن الشيخ محمود أو لو ديدي لعكتي آتمس مركا لغا بيحيو أرنتاسنا فلانقين iyo muuqaalo cadeynaya iyo arrimahaas aan kaga haya soo dhawaada meel walba oo aad joogtaan iyo si walba marka ay maqlaysaanba hadii aan ka bilaabo arinta barra aadan shir barra hiiraale waxa runtii la dabcay in la sameeyo qorshe la doonayay in markaasi lagu masaafuriyo barra aadan shir barra hiiraale oo joogay degmada Doolow ee gobolka Gedo runtii qorshahaasi wuu fashilmay wuxuu qorshahan u noqday markii cabaar waqti la geliyay qorshe la dhex maray saraakiisha ciidanka Itoobiya ee ku sugan gobolka Gedo isla markaasna dhaqaale la siiyay oo la siiyay amra anikan in la diro ayuu noqday markii uu barra aadan shir barra hiiraale ka hadlay warbaahinta ayay noqotay arrintaani mid markaasi lagu baraarugo isla markaasna ay gaartay cid walba iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxa arrintaani ku baraarugay mas'uuliyiin waaweyn oo xilal sarsare ka soo qabtay dalka Soomaaliya kana soo jeeda gobolka Gedo siyaasiyiintaasoo aanan haysanin fasaxa inaan magacyadooda aan markaa soo xigto ayaa dawladda Itoobiya wasaaradda arrimaha dibadda iyo safaaradda ay ku leedahay dalka Soomaaliya la xiriiray isla markaasna waxa la weydiiyay waa maxay sababta barra aadan shire oo jooga gobolkiisii oo jooga magaaladiisii oo aan ahayn nin amni darro iyo dhibaato wada la doonayo in loo masaafuriyo waxa dawladda Itoobiya ay sheegtay inaysan waxba ka ogeyn inaysan qorshaha ayadu uusan ka soo bixinin inuu yahay arrin aysan wax cadeyn aysan ka haynin isla markaasna ay u baahan tahay inay isku laabato oo ay soo xaqiijiso cidii amarka fulisay danta laga lahaa iyo arrimahaasi saacado yar kadib ayaa mas'uuliyiintii lagu soo warceliyay fariin ka timaaday dalka Itoobiya waxaana la sheegay ama dawladda Itoobiya ay sheegtay in saraakiisha sirdoonka ah ee dalka Itoobiya u jooga gobolka Gedo khaasatan magaalada Doolow ay markaasi awaamirta ayagu ay fuliyeen ayna tilaabo sharci ka qaadi doonaan barrana uusan dambi gelinin in la arinta lagu sameeyana aysan ahayn arrin ayagu ay raalli ka yihiin baaritaanka dawladdaasi Itoobiya ay sameysay ayagu waxay ku qabatay sargaalkii ugu sareeyay xagga sirdoonkooda ee joogay degmadaasi Doolow waxaana la weydiiyay su'aalo ka dhan ah waxa uu sameeyay iyo cid ku amartay ninka sargaalka uu diiday inuu sheego cidda soo dirtay iyo cidda dhaqaalaha ku siisay walow si dhab loo tuhunsan yahay cidda kaliya amarkan uu ka iman karo inay tahay garabka Axmed Madoobe oo ah cidda kaliya oo u aragta barra aadan shir barra hiiraale iyaga markaa qatar ku ah ninkii sargaalka uu diiday inuu magacna sheego uuna diiday inuu lacag sheego waxa lagu amray inuu si degdeg ah u soo galo meesha loo yaqaan Addis Ababa gaarigiisan uu saal ku soo shubto waxaana la xaqiijiyay inuu ninkaasi isla saakayba waagu markii uu ka bariyay dhanka Soomaaliya uu qabtay dhankaasi Addis Ababa isla markaasna ay dawladda Itoobiya ay soo sheegi doonto wixii dambe macluumaad ah oo ku saabsan cidda ninka soo dirtay hadii loo baahan doono barre wixii ka dambeeyay waa safe wuxuu joogaa dhulkiisa nin ka wadi karo ajaanib ana ma jiro wuxuuna runtii uu barra hiiraale uu sameeyay geesinimo aan hubo in dad badan hadii saa la oran lahaay mar carar lahaayeen ama isdiib lahaayeen markii aynu fiirino maanta sida Soomaalida ay ugu dhagan nugul yihiin shisheeyaha iyo waliba dawladda sida dawladda Itoobiya oo kala hadaba waa maxay waxa keenay in barra aadan shir meeshan laga diro waa maxay arrinta halkan ku jirta oo barra ah oo cabsi barra laga qabaa maxay tahay ayaan falaqaynta ku bilaabaynaa taa waa xogta intii horeysto tuunka ugu weyn waxa laga qabaa inuu qorshahan soo maleegay ninka loo yaqaan Axmed Madoobe waxaana Doolow jooga shakhsiyaad badan oo asaga ka amar qaata oo qorshayaashaasi maleegi kara waxaana la helayaa xogo kale oo sheegaya inay marar badan ciidamada Itoobiya la dhaxmaray nin walba oo la dhaxmaro ciidamada Itoobiya ana dawladda Itoobiya hore ayay u wadataa
وحبس على طحابة سأنه خرب مرة بدن وارجني هذا مركا إذا تون قال لقب أحمد مذوبة وما يروح أحمد مذوبة كهنا هي أسونا إنه حل جاني وبرأ وعلي سعره وحصاب حيا حاجة شيء جيا إنه أحمد مذوبة دون إنه سميه دور الشكلته وأهل عيدي وعنك كواي وسكع عن الشوي سيد عدرادة نيك كلية أو ما أنت وقطر وعرقه أو قبل كجدة شوقه مركي لقرب السياسيين كله أو مجي ميسام كله قبل كجدة لكن حتى دبده أقام مكان قارن توبي يشرم قارن كان يشرم قف كلية أو جدها كنا قبل كجدة أحمد مذوبة وعبسي كقبو أيال الشيء يا إنه برا آدم شرب برا هيرالي ما دام نيك ودونه يمرك نسكع عن الشو وكي يابا يا إنه برا ملا عكسميه أباب العيدن يئن مر لبعض أي جدو كقرحضو دبيل حوق بدن وأحمد مذوبة لوجا صور شيء أو صواب كرتاب عن كهذا وأنا صابت أحمد مذوبة ودونه إنه سافيه هذا برا آدم شرمية هي نسي صدا دمع كله نين أحمد مذوبة ما أنت وحق ودونه إنه سمع إنه رستاي كريه برا آدم شرمة وياهي ويسؤال شكله مدحيته هذا الكيشري برا آدم شركة صياري ورباهنتا وكشري وحرنتي وداها كقاضي وقاطي دور وين أو سياسات وهذا الكيس برا كم دها إنه أحمد مذوبة يكون حديثه أي اسمه عارض سيهين إن عدة دم على إني كسر وشامة هذا قبل كجذب يسربح ولو دولة إثيوبيا يهاتو واستدفاع دونه عرديسة يشرفتيسة قبل كيسة ومدي سنة ومركا ودفاع دونه وسلو كلام الشيء برا إن وقت أحمد مذوبة ودماضي أو صنعهين مدحونه أنت وحي كذا بأيام ولي بقى إن قد يد قبل كجذب أي سنقولي دمان أو يصير وتاجنتاي هذا لا صوت أمريكي لا فسره وعم مقارنة إن برا هذا الشيء برا هيرالي ومركاني ستوسا وصار وكان صدي سياسة ده أما ودب وصار لابتي سياسة ده جبوينكا إسلام مركزنا وياهي نكهب ليورا أو سوغية مركا وأحمد مذوبة تلعب عصب أو دور الشيء إسكو عنا شباب إنه قاضو من سوغية أيو إجياهي هذا بقى حكوسو زيادين كرا برا هيرالي سياسة ده عكرن حقوق ده بدن الرجل ده كمغان أو أي سنة لصود عفاي أي مركز أي كعبانين مركان مال بدن كيستاجي وأصدق بوقور قلي أنا مثلا صدق عذر أو كل عاي سياسيين ترهير جدو إنه برا هذا الشيء برا هيرالي وحل يعني الدواء ونقون قريب عذر كوجه الرئية كل عاي سياسيين ترهير جدو وجوان لعنته أي قوة شهيان سياسة فقيد كأ أحمد مذوبة وعن مالي والباركينا سياسي ترهير جدأ وأحمد مذوبة معارضية مال ما كلام عن أركينا سياسي وأحمد مذوبة لفلفية وحين أرجني أسبوع إلى صعود عفاي مامور كياري أو قبل كجدو أو كسوغان مجال كيسمايو إسلام مركزنا رنتي قبة جو جردا السياسات وأحمد مذوبة وبرام برية وتصالح موجنايا عذرك كود عاي سياسيين ترهير جدو أو إني سنلحين وتشدو يكشد السياسات وأيكون وجهي كران أحمد مذوبة وأيكون رادين كران وها أمضوا ذا كم قر قدم كلامات أو برا كعافي ما تقبله كان دوين كرهير جدو markaan aragtidayda aan ku biiriyay ayaa waxay tahay ciidan la'aanta haysata gobolka baaxadaas leh awoodda leh dhaqaalaha leh bulshada iyo reerka deganna uu ka mid yahay reeraha ugu badan ee qurbaha maanta jira waa gobol aysan jooginin ciidan ay gobolkaasi ay leeyihiin sidaa daraadeed barre wuxuu dawo u noqon karayaa cudurka ciidan la'aanta ah ee gobolka ka jira waa nin sargaal ah waa nin geesi ah وأن يقعنا إذا ماذا يأبابل كودا وأنا أمسنا هاي إنه أبابل كري أو لسه كري عيدا حقله ورر جدوده أو كدفاع كري على الشباب يعيد والباء أو قبل كاسي كسو حد جبته سيد أحمد مذوبة يكون دبر اللي في يدعه مركز لا صعدة قدم كسر حاضر وأنا سلا هاي برا الدو ويا يحل يعني إنه كسر بيرو سياسات ده جبوينكا يمد الهر جدبهم وحويه من ملعنت كم مقطع شعبك السياسي تهر جدو برا وعن سلاها وانين مدين كرا يرهر جدو وانين أن لوك العرتي دوانين قد يديسا وان أضياشا نبضونا ده السياسيين تبع يسكو كهني كرايا إسلام مركزنا مدين كرايا صدق ناس عذر أو حيستا سياسة الهر جدو كا يرهر جبوين كذا ما أنت برا إنه الدو يهبنا عمسا مدة وارسو عن شيء وقو عن لعنتا مدة لبعض عن شيئنا وعيد لعنتا مدة استحانو عن شيئنا ومن ملعنتا قدم كالكاسان أو بحي
waxaan doonayaa inaan u galo shirkii aynu maalmahan ka war dhowraynay ee ka socday dalkaasi Djibouti oo ay shirayeen dawladda Mareykanka Xasan Sheekh Maxamuud Ismaaciil Cumar Geele iyo dadka socda Muuse Biixi oo runtii ahaa shir si weyn indhaha loogu hayay kooxii halka ku shirayay runtii ajendayaal kala duwan ayay koox walbaba ay markaasi ay goobaysay oo ay doonaysay kooxda ugu horeysa waa dalka Mareykanka waxaynu ognahay in dalka Mareykanku wayaamii la soo dhaafay si weyn uu u raajicinayay in markaasi uu saldhig ka samaysto Berbera isla markaasna aysan suurtagal ahayn uu Somaliland kaliya uu heshiis la galay marka federaalkana uu la galo waxa ugu qaybo kamid ah la helay ay sheegayaan in halkaasi ay isugu yimaadeen dad ka socda Ismaaciil iyo Xasan Sheekh Maxamuud isla markaasna looga hadlay arrimaha la xiriira saldhigga Berbera oo ay doonayaan dalka Mareykanka walow sidaan xaqiijinay aan la saxiixinin heshiiskaasi dib wuxuu ka noqon doonaba soo marka Mareykanku wuxuu raadinayay oo danta uu shirka uu ka lahaa waxyaalaha ugu weynaa waa ka hadalka arrimaha la xiriira bayska ay doonayeen inay ka samaystaan aaga Berbera kooxda labaad ee halka joogtay oo interest ka lahayd shirkaasi waa Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi asaga la socday oo wasiiradiisa ay kamid ahaayeen xasan wuxuu doonayay inuu helo dhaqaale la siiyo ATMIS isla markaasna ay ku sii joogi karayaan maadaama xasan uu god ku shubay ciidamadii qaranka fashilna uu hareeyay dagaalkii la yiri al-shabaab ayaa lagu jiraa waxaa la xaqiijiyay oo warbaahinta caalamku ay xaqiijisay in dawladda Mareykanka iyo European Unionkuba ay diideen gabi ahaanba inay halka ku bixiyaan dhaqaale ka baxsan wixii hore oo ay bixin jireen waxay si caadi ah u sheegeen warbaahinta caalamka inay ciidamadii 3,000 ahaa ay baxayaan maalmaha hadda bisha ka hartay inta bisha ka dhiman oo ay joogayaan bisha intaysa dhamaani ka horna 3,000 way baxayaan waxaana lagu amray inay baxnaan maxaa la yiraahdaa ciidamadaasi dawladda Mareykanka iyo European Unionkana waxaa laga soo sheegay oo warbaahinta Al Jazeera ay sheegtay ay ku daaleen runtii aad inay ugu daaleen dagaalkan ila meereysada noqday waxay ku tilmaameen dagaal u dhaxeeya jiirka iyo yaanyuurta oo kale oo aan dhamaanaynin ayaa lagu tilmaamay dagaalka al-shabaab iyo dawladda Soomaaliya u dhaxeeya isla markaasna wax dhaqaalaha kuma aan bixinayno ayay yiraahdeen si Al Jazeera aan ka soo xigtay bal muuqaalka waxay la daawada by troops provided by other African countries under the banner of an African Union and United Nations authorized force. Now that force depended on support and funding from the US and the European Union, both of whom in recent years appear to have had some fatigue, tired of this never-ending game of cat and mouse in which the forces they were supporting held. Now, the African Union has refused Somalia's request to extend these 3,000 troops for another 90 days. So from what we know now, according to what the African Union has said, those troops will withdraw at the end of this month. marka halkaasi dawladda Mareykanka iyo European Unionka way diideen in dhaqaale ku bixiyaan ciidankiina way baxayaan wixii alla dalka ka yeelaba oo muddo badan baan ku soo celcelinayay muuqaalkii ka horeeyay ayaan idin sheegay inaysan suurtagal ahayn adduunka crisis-ka dhaqaale ee ka jira inay Mareykanku iyo Europeanku ay dhaqaale cusub ku bixiyaan ATMIS oo waliba 55 milyan ka badan suurtagal ma ahan waayo waxbaynu arkaynaa waxbaynu akhrinaa waqti kale ma hayno anagu waxaan ahayn sida daraadeed qorshahaasi waa fashilmay xasano iska soo laaban doonaa asagoo wax dhaqaale aan helinin hadda wuxuu shir kula jiraa dawladaha ay ka mid yihiin Turkida oo wax ka raadinayo maaqa wuxuu ka heli doono laakiin ninka qorshe uu meesha u tagay waa fashilmay waxana kama shaqeynin kooxda saddexaad ee meeshaasi joogtay ee danta kala ahayd waa Muuse Biixi oo asaguna dhowr waxyaalood oo kala duwan doonayay waxa ugu horeeyay oo Muuse uu doonayay waxay ahayd in heshiiskii Berbera marka la saxiixo isla markaasna xoogaa lacag oo Mareykanku ay ku bixiyaan meelaha ay xarumaha ay ka sameystaan in la siiyo qaybta ugu badan dhaqaalaha in asaga la siiyo balse ugu dagaal galo ayuu raajicinayay arrintaana ma aysan dhicin qodobka labaad oo uu raadinayay waa inuu ka dhaadhiciyo Xasan Sheekh Maxamuud waa Muuse iyo raggiisa inaan la aqoonsanin maamulka SSC oo maalmihii la soo dhaafay Xasan Sheekh Maxamuud ay siyaasiyiin iyo xildhibaaniin maxaa la yiraahdaa reer SSC ah ee ay isku saarayeen in markaas SSC loo aqoonsado maamul ahaan Muuse arrintaasi maqlay ayaa kala hadlayay baa la yiri Xasan Sheekh Maxamuud inaan arrintaasi aan la sameeynin oo meesheeda
ay SSC joogto qodobka saddexaadna waxa weeye inay Muuse iyo ragga uu soo diray ay kala hadlaan Ismaaciil Cumar Geelle dagaal cusub oo la sheegay inay doonayaan inay mar kale ku qaadaan Sool saddexdaas qorshe ayuu asaguna meesha u tagay iyo ragga asagii markaasi matalayayba kooxda afraad ee meesha joogtay waa Ismaaciil Cumar Geelle oo asaguna la og yahay inuu yahay dulaal ka dulaala maxaa la yiraahdaa amni darrada dalka iyo boobka iyo khayraadka dalka Soomaaliya dulaal ka dulaala isla markaasna aabiyo hooyo u aba labada nin ee meesha fadhiya asaguna meesha uu joogay wuxuuna ahaa ninkii wax u kala dulaalayay oo doonayay in wax u kala iibiyo cid walba oo doonaysa in dalka Soomaaliya ay boobto iyo in heshiisyo xaraan ay gasho sida daraadeed meeshaas wixii ka dhacay markii si guud loo fiiriyo fashil baa meesha ka soo baxay wax guul kama soo bixin Muuse wixii uu doonayay ma uusan helinin waliba arintii dakad maxaliyada Berbera base la xiriirtay lacagtii uu raadiyay ninka loo yaqaan Xasan Sheekh Maxamuud Mehrinin dawladda Mareykanka way diiday in dhaqaale ku bixiso Mareykanku waa ninka hela ama waa dalka hela intuu lacag diido inuu Berbera xoog uga saxiido Xasan Sheekh Maxamuud markaysa uu diido lacag inuu siiyo uu ku bixiyo inay atlas joogan haddana waa ninka ka saxiixan karaya ama Xamsa ka saxiixdo ama Xasan si kale uga saxiixdaan haday doonanta ka saxiixdaan baayiban Muuse la hadlin beerid ka baxayaan marka nimankaas dhaqankoodana waa dhaqan noocaas waxaan rabaa inaan u sheego shacabka SSC runtii waxaan isleeyahay SSC maanta uma baahna aqoonsi Muqdisho ka imaanaya mana aaminsani inay u baahan yihiin aqoonsi ka imaanaya magaalada Muqdisho waxaan inuu isku fadhin baan aaminsanahay Muqdisho xilligan hadda lagu jiro dawladnimo Soomaaliyeed oo la daafaristaa kama jirto ka jirta koox Mooryaan ah oo ku fariisatay dawladnimadii Soomaaliya oo boobaysa resource-kii ummadda Soomaaliyeed oo musuqmaasuq u hareeyay waxba ma tarayo waxa loo yaqaano aqoonsi ayaga ah Somaliland ayaa tusaale noogu filan maamul goboleedyada Soomaaliya qayb ka maysan ahayn dal aqoonsiyahana maysan ahayn haddana maamul shaqeynaya ay ahaayeen 30 sano la soo dhaafay ay SSC u baahan yihiin cadawgooda xataa inay mararka qaar cashar ka bartaan inay fiiriyaan si u noolaayeen haddii amni heshaan lacagta Soomaaliya lagu bixiyo oo ay caalamku siiyaan waa nili iimaanaya xasan ad martaan oo baahidin waana wixii ay sameeyeen waxa loo yaqaan Somaliland fadhigiina nili kugu iimaanaya xuduudiina ilaashada ciidankiina dhista dhaqaalihiina iska aruriya ayaga beesha caalamka idii iimaanay beesha caalamku doqomo ma ah markaysan intay idinka gudbaan markii hore sababta idinka gudbayay balaa dushidin ka saarnay laakiin haddaad amni yeelataan haddaad fariisataan caalamka oo dhan baa loo kacaya qaramada midoobe waraaqa loo diraya fadhigiina nili kugu iimaanaya guddi baan idin soo diraya xiriirna waan idin siinaya xasan oo baahnidin dhaqaalaha Soomaaliya loo qaybiyana oo hadda qabiilada loo qaybiyana qaybtiina waad helaysaan adinka intaas idin leeyahay intaasaan ku soo koobaya inta dib soo laaban waxaan ka tagay sanadino wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh